hoggaanka urur siyaasadeed Somaliland kula warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku taagan yahay dariiq sharci ah isla markaana uu ilaalinayo dariiqa saxda ah ee arrimaha ku saabsan furista ururada siyaasadda ee dalka Somaliland waxa kale oo xubnaha gudoomiyaasha urur siyaasadeed cusub ee Somaliland iska dhex doorteen afayeenka cusub oo ku hadli doona afka gudoomiyaasha urur siyaasadeed cusub ee Somaliland halkaasi oo ay ku doorteen Saleebaan Ciise Xagle Toosiye waxaana ka warramay mowqifka ay ka taagan yihiin in la qabto doorashada ururada ee dalka gudoomiyaasha 20 urur oo saaka oo taariikhdu tahay 24kii bishii 7aad isugu yimid halkan ka wada hadlay danaha iyo sidii loo dardargelin lahaa habsami socodka hawlaha ururada saad la socotaan ururadii way furan yihiin waxa isdiiwaan galiyay in ka badan 20 urur waxaan rajaynaynaa sida sharciga waafaqsan in ururadu ay galaan insha Allah bilaabaan ololahoodii tartamaan ay ka soo baxaan saddex xisbi oo noqda kuwa u tartama madaxtooyada ama madaxweynenimada dalka Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu isku afgaranay inaanu dhamaantayo ilaalino xuquuqdayada dastuuriga ee aanu leenahay oo ah in wadankan 10kii sanaba mar ay furmaan ururadu lana tartamo lana soo saaro saddex xisbi oo 10ka sano ee soo socda hogaamiye siyaasadda dalkan waa qodobkaasi dastuuriga oo aanu xaq u leenahay waxaanu dhamaantayo diyaar u nahay in arrinkaasi hirgalo xukuumadda iyo madaxweynaha waa uga mahad celinaynaa sharciga ay ku taagan yihiin waxaanu jecel lahay in ay ku dadaalaan ilaalinta sharcigaas mucaaridkana waxaanu u soo jeedinaynaa in ay u hoggaansamaan sharciga saddexda xisbi inay ka mid noqdaan ururada u tartamaya tartanka doorasho ee soo socda sida dhaqsaha uga dhici doona dalka mar labaad waxa saaka halkan lagu heshiiyey ilaalinta habsami socodka tartanka ururada iyo in doorashada ururadu ay aad uga soo horeyso ta madaxtooyada waxa la doortay anigoo ah afayeen iyo xoghaye waxa maanta laga bilaabo aanu ku heshiinay inaanu si wada jira u soo gudbino ra'yi kasta iyo arrin kasta oo aanu qabno si aanu u muujino midnimadayada iyo wax wada doonistayada aad iyo aad baan idin salaamayaa sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay xubno kamid ah urur siyaasadeed cusub ee dalka Somaliland maanta halkan waxa isugu yimid dhammaan ama intii ugu badneed ururadii cusba waxaanu halkan ku galnay shirkaana waxaan ku go'aaminay inaanu yeelano afayeen noogu hadla afka ururada cusub aan mar kastaba wixii dhacayana isaga uu ka mas'uul yahay magaciisana wax weeyaan Saleebaan Xagle Toosiye wad maatintiin dhamaantiin Xamse Qurbaani warbaahinta qaranka Somaliland Hargeysa.